أما بعد أيها المسلمون عباد الله إنك مقرصونا حالك مسلمين تسيدويهي دلق إياه صينتا أي مسلمين تمانت أدوية دشيدة كنو ليهين سيدا إلهي سبحانه وتعالى ومصل لدي عدو قودي سيدا أمضوه السقوها بروحدين قباتينتا يا أدونسيك يدولينتا ددك مسلمين تا مالي والبدد مسلمين أدوية دشيدة لقلاهية ظلمي يحق درو waxay geysteen iyadoo aan jirin in badan oo kamid ah dulmi bay ugu jiraan jeelasho rag iyo dumar bale iyo daayar in badan oo kamid ah dhulkii muslimiinta waa la haystaa xoog baa lagu haystaa in fara badan oo kamid ah khayraadkii muslimiinta waa la gurtaa iyadoo muslimiinta waxba laga weydiin dadka muslimiinta maanta guud ahaan caalamiyan marka la eego taladoodu gacanta uguma jirto waa la hogaamiyaa waana loo taliyaa waana laga danaystaa sida la doonayana waa laga yeelaa taa maanta oo dhan inaynu isaga warranno ama aynu ku celcelinnaa xaalka waxba ka bedeli mayso oo war la wada hayo laakiin su-aasha ay tahay qof kasta oo muslimi inuu isweydiiya waxa weeye laa shaka muslimiintu inay yihiin kuwa haysta diintii xaqa ahayd ee ilaahay u soo dejiyey ee ciidda qabsatee ku toosnaata ilaahay uu ballanqaaday عزada iyo sharafta saraynta iyo hogaaminta nasriga iyo guusha wala shaka cadawgooduna inay yihiin kufaarun billah noocay doonayaan gaalaha ka sii ahaadaan maxaa sababay haddaba in muslimiinta lagu sallido cadowgii gaalada ah ilaahay ka fogaa maxaase sabab u ah dulliga muslimiinta maanta haleelay waa su'aal dadka in badan aan isweydiin kuwa kaloo isweydiiyaana aanay jawaab saxa ka bixin in badanoo muslimiinta ka midiina in la soo hadal qaadaba ay dhibsadaan waayo waxay ka hor imanaysaa su-aashaasi qaabka ay doonayaan inay waxu daweeyaan xaqiiqatanna waa waajib sharciya qofka muslimka ahi inuu isweydiiyo cudurka iyo xanuunka muslimiinta haya maxaa keenay xanuunka lama daweyn karo ilaa sababtiisa la garto dabeetana sababtii la joojiyo wixii kaloo dhane qofka la siyaabo wuxuu noqonayaa xumed jabin buu noqonayaa muslimiintu maanta waxay wadaan weliba intaysa saxda ahi xumed jabinta ma dhaafsiisa inay xanaaqaan inay duceeyaan inay cadowga caayaan inay xamaasadoodaan oo cawaadif ay qabato sida badan intaa ma dhaafsiisna weliba inta la odhan karo sharciga ilaahay ma khilaafsana intaanaan u gelin sababta runta ah aniguna run kama dhigin warkaygiina maaha sababta kitaabka ilaahay baynu ka eegaynaa allah subxaanahu wa tacaala cid ka run badani aanay jirin cid addoomihiisa uga xoogagaalsani aanay jirin axaadiista nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo asaadiqu lmasduuqa ayaynu sababta ka eegaynaa kadibna waxaynu isweydiinaynaa cudurkaa kitaabka iyo sunnuhu ay sifeeyeene muslimiinta maanta haya maxaa dawow ah dawadana kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebigaynu ka eegaynaa waxaan se arrintaa gogoldhig uga dhigayaa laba arrimood oo ay tahay qofka muslimkaa inay qalbigiisa si dhammaystiran u galaan labadaasi arrimood waxay fududaynayaan oo qofka ay ku caawinayaan inuu fahmo cudurka muslimiinta haya xaqiiqadiisa iyo inuu garto dawadiisa dhabta ah arrinka koowaad wuxuu yahay ana allaha laa yadlimu axadan min cibaadih axad addoomihiisa ka mida ilaahay ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid yaa odhan kara maanta muslimiinta dhulkooda la haysto la laynayo la qixinayo la dhibaataynayo ilaahay baa dulmiyey qofkee baa ku dhiiran kara laa yaquulu dalika mu'minu billaah qof ilaahay rumaysan oo ilaahay yaqaanaa sidaa odhan maayo arrinka labaadna wuxuu yahay ana allaha wacada annasra waaltamkiina waalcizata lilmuslimiin ilaahay wuxuu kitaabkiisa dadka muslimiinta ee mu'miniinta ugu ballanqaado ugu yaboohay guushiyo gacan sarraynta iyagu inay leeyihiin cizada iyo sharafta iyaga inuu siinayo dhulka iyaga inuu dhiibayo ummadaha kuwa hoggaamiya inuu ilaahay ka dhigaayo waxa kale oo ah iimaan waajiba inuu qof waliba rumeeyo ana allaha laa yukhlifu almiicaad ilaahay wuxuu yabahe u ballan qaaday inaanu baajin kuma odhan kara maanta nasrigii guushii gacan sarrayntii cizadii hoggaamintii ilaahay muslimiinta u ballan qaaday way mutaysteen oo shuruuddeedii way ka soo baxeen laakiin ilaahay baa ballankiisii baajiyey laa yaquulu dalika mu'minu billaah
قف إلهي الرميساني سيدا أوران ماير ومن قال ذلك فليس بمسلم قفك سيدا إلى هدانا مسلمة وحكرا يدنا تاويه لسا إلهي وحو الدونين أن عدنا ورستاقي كرين عدو إلهي إلى ألينا عدنا ودافي كرين عدو إلهي سريسين ينا إن أنا عدنا هوصولي كرين عدو إلهي عزين ينا عدنا إن أنا الدولين كرين الرموه بإلهي بقعنته بجيران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا أورنكر إلهي وادوني ضدك مسلمين تاينو عزيه أو شرفه قرقاره أو مضاه وكسر رئيسيه لكن عدك لا إلهي كقاود بضطي يهود با كقاود بضطي مريكا با كقاود بضطي قالك لا كقاود بضطي وبلنك إلهي إنه باقد الصوبية أورنكر لا يقول ذلك مؤمن بالله وفي إلهي سبحانه وتعالى الرميساني سيدا ما أورنكر إذن الكي وحك خلديين فرد حقيقة الساسي أي تاي الكي وحك خلديين إلهي أي كتاب كيسي نوب الشاقي نبي محمد با عليه الصلاة والسلام إنه عدي الكي وحك خلديين ودينا مسلمين ما حق إلهي سبحانه وتعالى وحك خلدين وحك لماها أدقوا اسكرب ديقول مسلمين تي هوري مسلمين تعصرق النولي مركا لقيمة يلا اسكرب ديقو بل دين تسيدي كويهين اسكرب ديق برشده لسي كويهين كو عمل فلك هذا قف مركا الله يقصدي كويهين إلهي أدعيتان كيسي أمر ردي سين لفوليو وحو إلهي ديدا يودان إلا قفقادو لقا ديرادو سيداي كويهين توحيد كي عقيدة دي صحداهي إلهي قلوب تلقو حر ربي وقرنا لعابدو شركي نوعيدي صدنا إلا قفقادو سيداي كويهين راعيتان كي رسولك عليه الصلاة والسلام يا إلهي لقو عابدو انتو نبي محمد إلهي كو عابدي أما الشيخ إلهي لقو عابدو بدعانا ليس كيلانيو سيداي كويهين من مدي إلهي وأمره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن سد ولدود باتشروا إسلاما وإن بدنوا كمدي علأيهين وأنا يسو قرمان عين عدونا نسكدعين عين بلو فير سوحي إلهي وحاران تمايا ما أنت مسلمين تدحوا السيدكو ياي ربادة تصالوا سوقادوا والدماد إسلام كيلا الشيء يبدن كود الرباد والشيء رخصتك كلاسيو وقفكو قادنا أيو ليسا سور رباوك الشقيو وانا الشيء معلن وبنانك الله صباحي إلهينا سبحانه وتعالى وحول يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلهي كبقى مؤمنين أي والربا ذا انت إذنكوا عدي كتغا وحياد ربطت كل عيدين ودن كتنازل مركو إلهي حارنتمي لك بلاب حتى إذا سيدايا لنا وقادا دقال حق إلهي كيمانيا وحق الرسول كيمانيا أيضا كدعايا دقالك ميانو صعون مانتا markay dasaatiirta iyo xeerarka iyo dhaqanka camaliga muslimiinta dhexdooda ba ribadii ay tahay shay la ruqseeyay sidii xalaash oo kale loo dhaqmaayo khamriga waad ogtiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay 10 qof in la nacdalay khamriga sababti kii sameeyay ee miiray ka ibinaya ka ibsanaya ka qaadaya ka xaqiisa loo sii sido dhammaantood way nacdalayeen خمرنا ما أنت مسلمين تدعوا السوق يا ودكتين حتى ودمضوا ممنوع كيهاي شعب ككنا للسيارة ودكتين هل كان بتصالة وقابل بو يدخمر يبابيل والبلقطة ضدك كبايع مشتري دول كان إسلام ككيريانا وكو إسلام وقالانا هاي ودمضوا مسلمين تبدن كودانا خمرقا سيدا حلاش وكلالو لرقما ريبودة يوسف فيهاي وادمودا شراب حلالة ودلada ayuu yaala qofka cabaya loo ma arka inuu yahay qof dambaabay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caasiyay halka hadii uu amarada dawladda wax kamid oo danahooda ku saabsan uu khilaafo si daran loo ciqaabayo Ilaahay amaradiisi baa la yaraaday dadka muslimiinta ah wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaaraantimeeyayna shaydaan baa u qurxiyay oo Ilaahay maxaarimtiisi bay xalaashadeen oo dadka muslimiinta ahi ay fududaysteen عقيدة حملة دولك الإسلام كتيرتا إنك ما قرصونا وقال كنا وقبري بالغ الضوافة والله بريا يولا ويديستا وحي إلهي مويا نعد كلانا بحين كرين إمسا سحر ولما أنت مسلمين تدح جوغا بالوقت يجي صحابة راو فيرسو وحوري جندب عمر بن الخطاب ورقد صوت ديري ولا يعي أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ننكستوا وح سحرة يقبل كستوا وح سحر تدلا فقتلنا 3 سواحر صدح بالها علي بس
ثلاثة إمسا جوغا ما أنت نولك إسلامك قاري مضى حيستان يا قاري قناعسط حيستان يا قاري سياسيين كلا حيستان يا قاري الشعب كيوب قلان إمسا فالية جوغا الشيغان يا صفة إلهي وإلهي وحمقا إنه أقياهي إمسا خرافة يا عقائد حن ما أنت مسلمين تكون أحفافصا بدعيك هذا الكود الداع عسيد والشيء ظاهر كا إذن مسلمين تحقوا ذا الله قصر داعي بل دقيسا آيادا قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وناك وحد لك ولنتا حق إلهي وكي وفضل إلهي النعمة إلهي حتى دات سيبتي صليضاي صارت التي بمرنا بكوبة قيس وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحلا لو وحي دباتك ودعا dhulkaaga ku dhaca naftaada ku dhaca eelkaaga ku dhaca maalkaaga ku dhaca caqligaaga ku dhaca camalkaaga ku dhaca adiga sabab ah hadalka cidda koobaad ee lagu hadlay waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam faman nahnu ayuha almuslimuuna cibaadallah haduu nabi maxamed ilaahay ku yiri wixii dib kugu dhacaada u sababa inagu yeeruna miyaynu gar u leenahay inaynu dhibaatadayna haysata cid kale u tiirino nacam cid kale waxay leedahay mubaasharada iyo inay fuliyaan laakiin sababta arintaasi ay ka dhalatay waa minna mana istaagayso fulintaasi ilaa sababta inagu aynu ka tanaasulno qala ta'ala lil mu'minin fi yawm uhud awlamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hada wamarka idinku dhacday dhibaato laban laabkeed idinku hore aad u geysateen macna fi qaswati badr oo intii badr gaalada aad yeesheen أنا نسكت إذن كلا إذن يلي في أحد هي اعتراضين سيطرين وقود علي ميانا المؤمنين هين ميانا نبي محمد آمن ولا تشوقين ميانا إلهي درادي وجهاد هين والدين تينا مكرو قاد نوضك اللهم هين إلهي بوجهه ويقول ومن عند أنفسكم واحد قلت له النبي محمد وإذن كيدن كتب إلهي سبحانه وتعالى صببتين يقول لي يموشاك أبو صفيان يقالده قامين يي إلهي سبحانه وتعالى عي إيو فلقادية إيقاون المسلمين تلقوا مشغولية الله قد يقول لبعتدوا إنه حقا سنكتمي سببا مباشرة صابهان إيو فلنا هنبا إلهي سبحانه وتعالى أرنقكم الكوين ويتاسي المسلمين طبعا تري ميسو وكورهن قفك قادك عنايا قادك مرقو عنو وعلانيا اختاركو الشيقا وكور وارقادك عنا هداد عنتواد كو على رساي هدي قادك الله عايك وربا والله ورن cunista adigu iska daa adigu cunista iska daa ila qaadku iska cunsiin ma adigu hadana doonan sidii sare ku dhimi maayo hadana sababto cunista adigu aan leeyman waxba u tari mayso ilaraani qaadku wuxuu yahay qaadka dhibaataas ku geystay war qaadka iska daa waalida adaa isugu sababay intaas u baahan yahay ka hadibsado ka xanaaqo ama ku farxo waana inta maanta ay muslimiintu u baahan yihiin u fiirsada adoomaha ilaahayow أحد عدة شوكتي إلهي هذا الكنكوري ياهاي وصحابة رسول الله ذاتك كوي فضل بدنا بعد الرسل والأنبياء أيو إلهي سيدا ولا حظا خلت كي يقفك القلين محوها ما شركي بيت سميين ما بدع بيت دين كدكتين ما معاسي إيو أمرك إلهي والله خلافية وحي إلهي حارنتي ما يولى السمايا بي لجهرين وبنانك ولا صابحين والسوقية هودا إيا قرية هودا إيا ميلو البكم وقرفي أبدا ما دي عنتاس الدوما إلهي وطوصا بيهايين وصالحين هل أمروا النبي عليه الصلاة والسلام سيئة خلافه عيدا كينا سبورتا سارادا دبرجبينتا نغا إلالية حتى نقول السنية عدينا للجبيبة إذنكو هلقا كسور نادعينا دبرتنا ويس خلافين ومخالفة كبادة يكون عواتا مرلبات كان برئيكي كمي دبابورتي كسور نادعو إلى مسلمين تقول إستيه maxaynu gagadan banaan ka qabanaynaa qaniimada aynu ka qayb gal inageeya bal garab dhig imisa amaro amarradii ilaahay kamida oo la khilaafaya maanta muslimiinta dhexyaal waaqimu salaata wa amr ilaahay imisa khilaafa malaayiin muslimiin oo salaad baan tukan baa leeyahay kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum imisa khilaafa wa atu zakata zakada bihiya imisa khilaafa wala taqrabu az-zina imisa khilaafa وتصاليال كواس لكن أمر كستو أمر هذا إلهي كميدو كتابك كويا لما السنة النبي تربضن ومسلمين وخلافي ما أنت كوبو قنسي وحكستو إلهي وديدو حاران تمايي ترادو فربضن ومسلمين والسماين إيسا أياد ما أنت عارك إيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحسفيي
حالك مسلمين. فقال فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. marka iibka ciinada la yiraahdo wax ku kala iibsataan waa iib xaraan, iibka xaraanta oo dhan buu tusaalooyay, bal wax kasto Ilaahay u xaraantimeeyay buu tusaalooyay. wana qofka shayga ama kaga iibsato tira gaarigaaga 10 kun adigu lahaatayga si oo isaga laftiisa aad kula noqoto aad tiraado 9 kun oo naqadayga siiso, waxay ka dhigan tahay inaad 9 kun 10 kun kaga sarrifatay. gaariguna wuxuu ahaa wax la muuqaal aan xaqiiqo lahayn oo la soo dhaxgeliyo. iibka markaad wax ku kala iibsataan waa khadtum adnaab albaqar oo loodiina aad raacataan oo dubka qabsataan, waradiitum bizarc oo raali ku noqotaan inaad beerihiina iska falataan. in la raacdiyo beera in la fashaba shariicada islaamku diidi mayso, waa laba arrimood oo xalaal bal diintu way dhiirigelinaysaa. intaas xadiis baa ku soo arooray wax beeristu fadliga ay leedahay, laakiin waxa loo jeedaa marka aad beer falashada iyo loo raacashada xoolaha kalena waa la mid aad kaga mashquushaan wixii Ilaahay idin amray, waxaanu Ilaahay idin ogolayna ay sabab idin ku noqdaan markaad aakhire ku ilowdaan adduunyadaas, markaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka jeesataan ee aad kaga fogaataan, jihaadka aad ka tagtaan. jihaadka waxyaabo ka faralsan baa jira, faral waliba fardu kifaaya oo in ku filan hadday qabato inta kale faralku ka dhacayo. laakiin waxa si gaar ah loogu sheegayaa cizul islaam baa ku jira, waa quruxda islaamka, dirwatu sinaam alislaam weeye. waxyaabaha ka waajibsan haddii laga tagana waa kasii daranta. arkaanta islaamka kuma jiro jihaadku, arkaanta islaamka oo laga tago ayaa ka dambiya ciqaab weyn jihaadka in laga tago. ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulliguna dee maanta waa ka aynu aragna weeye. maalin walba muslimiintu ay daawanayaan, warkiisuna uu soo gaadhayo, asbaabtii xanuunkuna dhexdooda ay ka buuxdo, dawadiisiina ay hareera taallo aanay dib ugu noqon ahayn. ilaahay baynu subxaanahu wa ta'aala weydiisanaa an yuwaffiqanaa لمعرفة حقائق الأمور وللعمل بدينه والاستقامة على طريقه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون عباد الله، وحول النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام سيدة أحمد يا أبو داود يا وريين من حديث ثوبان: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ummaduhu waxay u dhowyiin umamul kufri weeye, ummadaha gaaloobay waxay u dhowyiin inay isugu yeedhaan, isugu habar wacdaan haddaad muslimiinta tihiin, sida dadka xeedhada cunaya ay isugu yeedhaan fadal iyo soo fadhiiso kaalay cun. faqaala qaa'ilun wa min qillati naxnu yowmaydin, oo arrintaasma waxay ka dhalatay rasuulka ilaahay inaanu tiro yarnahay. qaala bal antum yowmaydin kaiir, rasuulku wuxu uhi maalinka aad baad u badantihin, walaakinakum guhaa'un ka guhaa'i sayl, laakiin waxaad tihiin daadxoorta uu daadku sidoo kale ayaa tihiin. daadxoortu waa qashin oo waxaan wad miisaan aan lahayn iyo culays oo waxaan qiimo badan lahayn, cagadaha biyaha laga cabay iyo xashiishka la daadiye iyo oodaha iyo qoryaha fudud iyo waxaasuu daadku sidaa. macnaheedu waxa weeyaan ummadaha dhexdooda kuma liidin, miisaan kuma liidin. qiimihii tiradiinu ha badnaato laakiin tayadii laydinka rabayna ma liidin. muslimiintuna waxay tayo ku yeeshaan biliimaani waalcamal asaalix. maaha adduunya oo quri muslimiinta tayo uma yeesho. alam tasmacuu ya cibaad allah alqustantiniya fii aakhiri zamaan muslimiintu inay takbiir ku furanayaan, allahu akbar bay ku furanayaan iyagoon hub kor u qaadin. maanta dadka muslimiinta ah awoodda maadigaabaa la xoog badan, iyaday yaqiin ku qabaan, laakiin iimaanka iyo allah subxaanahu wa tacaala adeecitaankiisa, tala saarashadiisa, baryadiisa in badan way la fududahay. xaakimkii faransiiska ahaa ee waddanka jazaa'ir aljeeriya xukumayey ayaa u yeedhay culimadii, maadaama ay yihiin hormoodka ummadda iyo wacyigeliyaasheeda. wuxuu doonaya inuu iyaga baqageliyo. wuxuu ku idhi faransiisku wuxuu haystaa madfac weyn oo meel walba gaadhay oo cid walba uu ku garaaci karo. waxaa soo kacay caalimkii ahlu tawxiidka ahaa ee qalbigiisu saynu u rajayna ilaahay ku xidhnaa, cabdilxamiid ibnu baadiis. wuxuu idhi annagu haddaan muslimiinta nahay waxaanu haysannaa madfac ka weyn madfaca faransiiska. waa maxay buu ihi madfaca ka faransiiska ka weyn aad haysataan? ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. aayaddaasuu akhriyey. ilaahay baa difaacaya ayo mu'miniinta. difaaca ilaahay wuxuu ku jiraa inta iimaankaagu marba uu leegyahay. kullamaa qawiya iimaanu linsaan wa taacatu lirabbihi subxaana wa tacaala,
qawiya difaacu llaahi canhu mar kastoo iimaankaaga iyo adeecitaanka rabbi aad adeecaysa uu xoogaysto difaaca ilaahay uu ku difaacayana wuu xoogaysanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam daadxoor baa tihiin buu ihi daadxoorta waynu ognahayo iyadu isma wadee daadkaa wada halkuu u jiheeyaa unbay u kacdaa muslimiintana xaalkoodu maanta waa sidaa xataa golayaasha la samaystay golaha ammaanka iyo umam mutaxida iyo waxba kuma lahayo xataa dawlad quri uguma jirto fiitoo baawar waxaa la idhaha ma leh weligood baa habataan cid kalea talada gacanta ku haysa walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum cadowgiina ilaahay laabtiisa wuxuu ka saari doonaa iyo qalbigiisa haybadaysigu idinka haybadaysan jiray muslimiintu markay bil soo jiraan baa waktigii nebiga cadow kasii argagixi jiray maantana waa loo soo dhereerinaya waad aragtaa walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahan quluubtiina ilaahay wahan buu gelin doonaa qaala qaa'ilun yaa rasuula allah wama alwahan wahanku waa maxay rasuulka ilaahayow qaala xubu dunya wa karaahiyatu lmowt adduunyada oo la jeclaadaa oo ilaahay laga jeclaado iyo daarul aakhira iyo amarada ilaahay iyadaa asal iyo sabab u ah khalad iyo gaf iyo dembi waxa la gelaya oo dhan marka rasuulka iyo diin la-aan oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasu sababtii kusoo koobay waa xaal inoo muuqda oo indhaheennu ay hayaan haddaynu isdiidsiinana waxba inoo tari mayso halkeennaas aynu fadhiyaynaa waan ogahay khudbadda noocan oo kale dad badan inaanay cajabinahayn qaar badan inay odhan doonaan muxuu yuhuudda uga hadli waayey yuhuud ilaahay baa nacdalay cadow ilaahay inay yihiin qatalatu lambiyaa inay yihiin kitaabka ilaahay bay ku taallaa wax muslimiinta ka qarsoon maaha way og yihiin sagiiruhum wa kabiiruhum rijaaluhum wa nisaa'uhum dulmiga muslimiinta ku hayaanna way og yihiin laakiin maxaa sababay sidaynu se uga baxnaa mise mudaaharaad umaynu ku jirnaa calamaan umaynu qaadanaa calanka yaraad sidsidataa muxuu ka qaadaya yuhuud adigunbaa buuq la dhex carcararay magaaladaadii adiga waxaa lagaa rabaa inaad qayb ka noqoto adoo hargeysa maanta jooga ama meel kastoo adduunyada ka mida adoo jooga waxaa lagaa rabaa inaad qayb ka noqoto siday muslimiintu dulliga uga bixi lahaayeen nasriga iyo cizada iyo sharaftana ay u gaadhi lahaayeen aday kugu xidhan tahay adigaa sababu noqon kara nasru lmuslimiin wa cizatuhum aw haziimatuhum wa dulluhum adaa sababu noqon kara meel kale ha keegin waxba isdhaafin ka odhan madaxda carbeed iyo kan iyo waxba ha odhanin adiguun bay kula mid yihiin waa waajib dhammaanteen bayna saaran asbaabtii nasriga muslimiinta iyo cizada inaynu la nimaadno waxa muslimiinta dulleyna inaynu ka fogaano aan ku soo dhowaado cilaajka iyo dawadu waa maxay badin maayo ee warka ilaahay umaa sheegaya iyo warka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim qoomna ilaahay ma bedelo xaalkooda ilaa iyagoo xaalkooda bedelayaan saxaabadu si ay ahaan jireen waad ogtihiin xaalkoodii xumaa markay mid wanaagsan ku bedeleen xaalkoodii siduu ilaahay u bedelayna waad ogtihiin taasuunbaa taalla muslimiintu cize iyo sharaf bay gaadheen wakhtigii hore cizadii iyo sharaftii sabablaan ilaahay kama xayuubin asbaab baa keentay oo xaalkoodaa keenay haddana xaalkooda hadday bedelaan cizadii iyo sharaftii sibay usoo noqonaysa ma quusanayno laa nayaasu min rawxi illaah walaa naqnatu min nasri illaah aad buu u dhow yahay aad iyo aad buu u dhow yahay waxay naga xigaa waa camalkeenna iyo toosnaanteenna iyo diinteenna in dib ugu noqonno qaala tacaala in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum laa yahuud walaa amerikaan walaa faransiis walaa kayruhum walaa umam dunya walaa jin walaa insi cid wax kaa qaadaysaa ma jirto in yansurkum allahu falaa haaliba lakum hadduu ilaahay idiin nusraynayo oo idiin hiilinayo cid idinka xoog roonaan kartaa ma jirto oo ilaahay inuu inoo nusreeyo maxaa shardi u ah inaynu inagu ilaahay u nusrayno sidaynu ilaahay ugu nusraynayna inaynu ilaahay diintiisa u noqono barashadeeda ku camalfalkeeda isku xukunkeeda ku dhaqankeeda qaala tacaala waantum alaclown in kuntum mu'miniin idinkaa kuwa u sarreeya maha sarreeyo qura kuwa u sarreeya ummadaha ma goorma shardi baa ku xidhan in kuntum mu'miniin daatiin kuwa iimaankii xaqiijiyey ugu yaraan iimaanka intiisii waajibka ahayd la yimi diintoo dhamminoo wada iimaan waxaa ilaahay loogu dhowaadoo dhammi waa iimaan qowl iyo ficil mid qalbi mid xubnuu sameeya oo wada iimaan waajibaadkao dhammi waa iimaan qaala tacaala wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablihim ilaahay wuxuu u yabahu u ballan qaaday mu'miniinta camal saalixana sameeya inuu dhulka u dhiibi doono kuwiiga ka horreeyey siduu ilaahay ugu dhiibay walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum diintooda siday doonayaan bixorriyatim inay ugu camal falaan inuu makansiin doono u suurto gelin doono walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahana nabadgelyo ilaahay inuu ugu bedeli doono yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay'a
لكن شرط واقع إن إلهي عابدان سبحانه وتعالى شركنا يكفوا هذا إيمان عمل صالح وإن إليه مادان مركاسي هليان يبوها إلهي ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون انت أدب ذلك كفريا نعمل إلهي ككفريا دين ذلك كفريا وفاسق سيوة واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة دول الأوغية سكد والله بحيه أي نسرق إلهي أي التمكين في الأرض اللي وأطيعوا الرسول رسولك إلا أطيعه وحلاله وحوى أمري لقاته لعلكم ترحمون حصر رحمة إلهي الوهرية لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض إن كستويتي رب بدين فقال بدين هو بدين إلهي ما عجز قلن كراه وما أود شيء كراه سيدا وقفوا ذا وقسالا بإلهي وروغي كراه سيدا كوان ما أنت جوغا كور ريب إلهي وكسمي ولا شك عقابك إلهي وكسوس عنه قارعان عصري قانو طغيان يحد قدم آلتي رب ذا يسميه وحدود دودن باي كتلابين لكن إنك علي نقول امتحاميا ما أهم معنى إذن قالوا المسلمين تكون أكسين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم مروا البقف كمسلم كابا إن كستوى حيا قال كون أكسن لكن قال كاد كون أكسن تأمي إلهي كون عقابي مركز إلهي سبحانه وتعالى العاصر ذلك مسلمين تاني ولا عليه الدنيا دوشي هذا القول باطيني هذين نقطة فلسطين يا هذين نقطة بورما يا هذين تشينا نقطة يا هذين ميلاها كلابا نقطة وينودوا عيننا إن الله سبحانه وتعالى عدوغا يدباتدين ساسيو كبدباديو ربنا سبحانه وتعالى ونصريه وانا نكدم قالنا دباتد لو غيسنيو لكن ما انت waxaynu ugu hiilin karnaa waxa weeyaan ilaahay diintiisa dhamaanteen baynaynu noqon wadagtiin yahuud oo siday maanta tahay aad uga tira yar ka hub yar ka dhaqaale yar ayay carab oo dhami isugu tageen dabeetana wixii dhacay waynu ognahay taasi maxay tusinaysaa tira badnaan iyo hub iyo waxa inaanu nasri ku xidhnayn asbaabta maadiga waa lala imanaya laakiin waxa ka horeyso ka xoog badan oo laga yaabo inay kaliya wax tartayadan asbaabtii kala lala iman asbaabta iimaaniga ah ee diiniga ah xal ugu dagaalamay ilaahay daraadii baa loo dagaalamay ilaahay kalimada allah qawmiga arabiga waxa gaalaba ku jiray dagaalka arabnimo waxa weeyaan ku dagaalamay hazimada ku dhacday waynu ognahay in inta aad uga tira yar oo ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii u dagaalamaysa oo midaysan oo iskhilaafsanayn ee cadawga ka adkaan karta wadaqtiin maanta Gaza oo qura وللاسف انت جماعيه انت فرقه كجرت قيب سك الهي سبحانه وتعالى وحوري ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني وركي الهي هاي ورنا اسخلافنا دad اسخلافتان ما دحايا ودمرانتان oo fashil maysa awoodiinuna meesha way ka baxaysaa hasa muslimiinta guud ahaan haysata meelaha dhibaatadu ay sida gaarka u taabatay maantana taasa ka jirta oo kamida waxyaabaha ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa iyo sharcigiisa lagu khilaafay waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta guud ahaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa u noqdaan qof waliba naftiisa intuu xisaabiyo qof una cid kale canaananay adigu naftaada ka bilow kadib cid aad gaarsiin karto fariintaas ilaahay kitaabkiisa ku taaliya xadiista nabiga gaarsiin ee nasriga iyo guusha ciidada iyo sharafta iyo hogaaminta lagu helayo lagu gaarayo dadka muslimiinta ana u duceey in ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwada lunsan u soo hanuuniyo kuwada jaahiliintana ilaahay inuu baro ilaahay diintiisa inuu baro استقامية توسنان ودعاء نصر يا عزة يا شرف يقول وحي كوهل لهايين ودعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم وفق المسلمين لنصرك لتنصرهم يا رب العالمين اللهم اهدي ضالهم وعلم جاهلهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم ارزق المسلمين بالاستقامة اللهم ارزق المسلمين بالاستقامة اللهم ارزق المسلمين بالاستقامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم اللهم انصر مظلومهم ومستضعفهم اللهم انصر مظلومهم ومستضعفهم يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد